أهلا فيكم يا أحبابي ملك صدرنا دافين كشكتان kusoo dhawaada kanaalkeena MMB waqti xaadirka waxaan ku suganahay Stockholm iyo Sweden mar walba waan xasuusanahay mar walbaba waan xasuusanahay xaafadda Ringibi ayaan ku suganahay maanta waxa soo qaadanaynaa fiirsara waxyaabo fara badan aynaan ka ogeyn baynu meesha ku qaadaa dhigi doonaa filinkan fiirsara kulli qof kastoo ciyaal hindiya uu garanaya wuxuu ka mid yahay filmada abid shirkadda Bollywoodka la sameeyay mid ka mid ah kuwooda ugu romanticsan ugu quruxda badan ugu taariikhda weyn ugu biladaha badan filimka wuxuu ku guuleystay 30 biladood oo waliba ay ku jirto ama awards ay ku jirto national award inaba caadi maaha barigaasna waqtiga la joogay 105 karoor buu soo xareeyay waqtiga waxaan inaba caadi ahayd adduunyada iyo caalamka oo dhan filimkan wala dhaceen hadal hayntiisuna daafa adduunka oo dhan ay qabsatay filimkan waxa macaaninayay ama dhadhanka goonida u sameeyay maadaama oo sheekadu ay ku salaysnayd ama ku sargoonayd inan muslimada iyo inan hindu ah iyo inan bakistaaniyada bilka soo hor u sheegnay 2004 ayaa uu shaashada u soo baxay ama la soo saaray waxa filimka director ka ahaa sidoo kale shirkadiisa ay produce gareysay ninkii odayga halajinkii weynaa ee Yash Chopra waliba isagoo in badan filmo sameyn ama director gareyn ayuu filimkan comeback aan inaba caadi ahayn ku sameeyay sidoo kale ha ka tagin waxa qoray filimka sheekada sida macaan waxa qoray inankiisa Aditya Chopra filimka wayna ognahay Shah Rukh Khan waa nin Hindu ah waana ciidamada cirka oo waxa la yiraahdaa magaciisa Bartab waxa la yiraahdaa Veer Bartab Singh ayaa la yiraahdaa ciidamada cirka ayuu filimka ku metelaya askar ciidamada cirka ah inantana waxa la yiraahdaa Zara Hayat Khan oo iyana gabadh muslimada oo Pakistaaniyada ay ku metelaysaa hadaba waxa xusid mudan in booska Pretty ay iska lahayd ama markii hore loo qoondeeyay gabadha la yiraahdo Kajal maadaama filimkii weynaaye all time blockbuster ka DDLG ay isla meteleen Shah Rukh Khan iyo Kajal ayaa Yash Chopra mar labaad ka codsaday Kajal inay qaybtan ay buuxiso hase ahaatee ilaa imika sababta lama garanayo ay filimkan ku diiday Kajal ayaa ku gacan sayday in badan oo adirshado badan la xulay kadib filimka waxa calaf yeelatay Pretty Zinta dhinaca kale waxa ku jira ninka la yiraahdo Manoj Bajpayee ama Doro ka tirahdin ninkana booskiisa waxa iska lahaa Ajay Devgan ayaa booska loogu talagalay oo Vianza ama ninka Farantiga u galin ama guursanaya mustaqbalka Pretty ayuu ahaa marka booska waxa la rabay in Ajay Devgan uu soo galo oo taas waxay ka dhigantay Kajal iyo Ajay Devgan ba filimka waa loo soo bandhigay laakiin Ajay isaga sababtiisa waa la garanayaa uu diiday wuxuuna diidayay Shah Rukh Khan oo markaas ay ka dhaxaysay xifaaltan aad iyo aad u daran inuu ka soo muuqdo isagoo ma garanaysa door yar oo waxba la joogin uu filimka ku metelo isna actorkii weynaa Shah Rukh Khan ka noqdo intaas uu diiday sida la sheegay kadibna filimka saas ayuu isaguna uga baxay waxa ku jiray adirshado badan iyo actoro badan hadda imika tusaale ahaan xogta kale ee aynan ogeyn waxay ahayd in Rani Mukherjee iyada laftigeeda booskeeda aan markii hore iyadu lahayn markii hore ay iska lahayd qofta la yiraahdo Aishwarya Rai booska ay ku metelayso Rani Mukherjee Zamiya la yiraahdo Zamiya Abukata wata de Allah horta filimkaas aniga shakhsiyan meel weyn biiga yala waa filimada abid ugu wanaagsan waa filimada ugu horeeyay Shah Rukh Khan ku taageeray Shah Rukh Khan filmadii u horeeyay aan ku jeclaaday filmadiisii hore oo dhan aniga
waxa laga yaabaa jiran jacaylkiisa aan igu socon laakiin filinkan zaaid buu filinkan qisa aan inaba caadi ahayn si uu gaboobayaan sida isagu iyada darteed sharafteeda soo ilaaliyo oo jeel u gelayo sa iyaduna intay ninkiiba uga tagto oo ay noloshii iyo reerkoodii waxay la rabeen oo dhanka tagtay isagii markii ogaatay inuu dhintay hadda jeel buu ku jiraa ay riyadiisii iyo rajadiisii iyo beerihiisii iyo guryihiisii iyo dhaxalkiisii wixiisii ay ilaalinayso waa filim run ahaantii qisadiis inaba aan caadi ahayn marka saamiyaa ilaahay usoo diraya baa lagu leeyahay oo abukaata oo aakhiritaanka iyagoo dee waaweynaada wata isu keenaysa waa raani marka booskeeda Aishwarya Rai baa lahayd Aishwarya Rai filimka way diiday iyada diiditaan waliba ma ahayn duruufta ayaa u saamixi weyday sababtuna waxa weeye waqtiyadaas waxa aad iyo aad yani xamaasadooda ay u kacsanayd iyada iyo jacaylkeedii hore Zallu Salmaan Bayjan Khan ayaa xiriirkooda waqtigaa burburay isagu laakiin wali wuu jeclaa meel kasta iyo gidaar kasta iyo sid kasta ay taagan tahayna wuu iman jiray xitaa haddii film lagu guda jiro ay la yiraahdo Aishwarya maanta halkaa film ku matalaysa ama tiyaatar halkaa joogta wuu kaga daba tegi jiray meeshana buuq iyo balaayo ka aloos jiray baa la yiri saa darteed filimkan booska iyada lahayd kadibna way ka tanaasushay waxay tiri iyadoo fadeexad iyo ceeb iyo isjiid ka caraysa iyo Salmaan baqdin ay ka qabto waxay tiri no iga raali ahaada aniga ma awoodo waan jeclaan lahaa laakiin ma awoodo saas iyaduna Aishwarya Rai filimka ay uga baaqatay waxa xusid mudan waliba filimka kaliya bariga kama baaqanay filmada ay iska qoomayso ee Salmaan dartii run ahaantii ay uga tagtay waa filimka kale isna jalte raani adirshada ka tahay iyada filimkaana iska lahayd filimka dubtaankiisa waxa lagu leeyahay iyada ku dhex jirta ayuu filimka ku darbaaxayba oo qaylo iyo buuq ku sameeyay ma filimka ma hayn filimka loo in caldeeray la matalayay filimka buu darbaaxan malaynaya kale filimkana buuq baa ka dhashay saas darteed bay uga cartay filimka jalte iyo Veer Saaraba labadaba laakiin booskeedii waxa lagu bedelay oo calaf u yeelatay calafka cajiib ee qofta la yiraahdo Rani Mukherjee waxa kale xusid mudan waqtigaas in filmo badan sida filimka Chapta Kaychani filmo badan baa jira laakiin Shahrukh waqtigaas 3 filim oo cajiib ayuu odagan Yash Chopra u sameeyay sida Dar Dilto Baagalhe iyo Veer Saara 3 filim baa isaga kala shaqeeyay waana 3 filim oo taariikhiya waxa la oran karaa aabihiisa Bollywood ayuu ahaa odaga Yash Chopra Shahrukh Khan maadaama isagu family iyo cidna aanu ku lahayn oo outsider u ahaa filimka maxay niri 30 biladood oo waliba national award ay ku jirta ayuu ku guuleystay dhammaan dadweynaha dhan baa jeclaystay waxa kale ku jira iyagana xusid mudan oo waliba door muhiim ah doorkoodu ha yaraado laakiin aad iyo filimka markay dad waaweyn ku jiraan wala si jeclaanaya ma ogtahay dad waaweyn baa ku jiray oo aad iyo aad runtii shirkadda buluulka looga qiimeeyo sida Amitabh Bachchan iyo Hema Malini oo la oran jiray Dream Girl ama gabadhii riyada sidoo kale islaanta yar ee u dhaxda Abbaska islaantan runtii bariga hore ma wada jirin inuu qabo show carruur hore leeyahay naag hore carruurta kale u dhashay tan waxa umay dhalin islaanta yar timaha dheer war islaanta horta timaheeda ma aragteen bismillaahir rahmaan filimka Devdas ayaan ku xasuustaa filimkaas aan ku bartay islaantan malaynaya waa aad bay u qurux badan tahay islaanta isaga qaba Anupam waxa la yiraahdaa Kiran Kheer islaanta oo waxay dhashay filimka Pretty bay dhashay Pretty hooyo tahay waxa ku jirta filimka sidoo kale Sohra Sehgal ayaa ku jirta marka filimkan ayaynu inaga laftigeena comeback baynu ku sameeynaynaa oo ka soo noqonaynaa YouTube-ka waxaan doonayaa halkiisa inaan ka sii wadnaa asxaabteeda qiimo badnayd alxamdulillaah rabbil caalamiin hawlo badan bay ugu furnaa laakiin alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ii fududeeyay imka YouTube taas ugu soo noqonaynaa insha Allah tacaala wixii codsi wadi soo qori kartaan haddii la yiraahdo iyo cidda jeceshiin ka soo sheekayno
filimkana intee siin lahayd 10kiiba imisaad siin lahayd aniga runtii waa filmada xaggayga ka ah 10 and 10 يعني waxa weeye filmada 100% aan siin lahaa 100% inaba caad ma filimkan runtii Shahrukh Khan waa filmadiisa aan ugu jecelahay inkastoo filmo badan uu leeyahay oo aad u macaanin kara odayga nasiib u yeeshay laakiin filimkan waa safka hore aan xaggayga kale ugu jiraa marka asxaabteeda qiimo badnayday wayna socday la socdo miyay oran jiray horta muddo fara badan bas weekend baysay YouTube-kii baan ku soo noqonaynaa aan kala kicino insha Allah taala aad bad mahadsantiin xaqooyinkana maxaad ka ogeyd nala wadaag thank you very much